kulan wacan daawadayaal halkan waa janaalka Wal News qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah xubno kala duwan oo ka hadleen magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub hadaba daawade maxaad ka taqaanaa taariikh nololeedka ra'iisul wasaaraha la magacaabay madaxweynihii hore ee Farmaajo war ayuu ka soo saaray hadaba wuxuu ka yiri ra'iisul wasaaraha la magacaabay Fahad Yaasiin waxa uu ka dhawaajiyay kelmad halis amni dhalin karta iyo qaybtan dambe warkeena oo aad ku daawad doontaan xog laga helay ujeedada qarsoon oo ay dawladda Kenya ka lahayd talaabadii ay qaaday dhawaan qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janaalka Hubal News fadlan daawade hadda nagu cusubtaan nagu soo biir oo kamid noqon saaxiibada ee wararka aanu ku baahina janaalkan aragtidiina halka oo soo nagu reeba muuqaalkana si share gareeya laagtiina waa inuu dhiirigelin haatan nagu soo dhawaado qodobadaas oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay Xamse Cabdi Barre inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka soo jeeda beesha ogaadeen wuxuu horey u ahaa xogayaha guud ee xisbiga UPD ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna sidoo kale soo noqday gudoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland markii dib loo dooranayay madaxweyne Axmed Madoobe Xamse Cabdi Barre ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee ka soo jeeda beesha ogaadeen ee xilka loo magacaabo sidoo kalena dadku qaar waxay tilmaamayaan inuu yahay ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee aan qurbaha ka imaan ee xilkan loo dhiibay inkastoo wararku qaarna ay tilmaamayaan in ra'iisul wasaarihii hore Saacid uu kamid ahaa xubnaha aan qurba joogta ahayn ila wareedyo la hadleen Hubal News ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu Xamse ku doortay inuu yahay qof uu yaqaano oo ay muddo wada shaqeynayeen taasina ay yareen karto khilaaf ka dhaxdasha labadooda Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale aad ugu dhow madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe wuxuuna ahaa xildhibaankii ugu horeeyay golaha shacabka ee lagu soo doortay Jubbaland 28 December ee sanadkii tagay 2021 xilka ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa rajo xoogan ka qabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dadaal u galay in xitaa hadii aan isaga la magacaabin loo magacaabo qof ka soo jeeda Puntland oo isagu uu kaalin kuleeyahay hadaba waa kuma shakhsigan loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha 12aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya wuxuuna dhashay horaantii 1970 waa 48 jir waana aabe heesta 8 caruur ah qabiilkiisa waa daarood kumade absame ogaadeen Maxamed Subeer shakhsiyan dadka yaqaan waxay ku tilmaamaan shakhsi asluub badan oo afgaaban farsamo yaqaan shaqo badan go'aan qaadashada ku fiican waxbarashadiisa waxa la sheegaa in heerarka kala duwan ee shahaadada uu ka qaatay jaamacado ku kala yaala Yemen iyo Malaysia jaamacad ku taal Yemen ayuu ka baxay sanadkii 2001 halka jaamacad ku taal Malaysiana uu ka baxay sanadkii 2009 khibradiisa shaqo markaanu eegno shaqooyinkii kala duwan oo uu soo qabtay waxaa kamid ah inuu soo noqday gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland sanadkii 2019 ilaa 2020 la taliya sare wasaaradda dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sanadkii 2015 ilaa 2019 ayuu soo noqday sidoo kale la taliya arrimaha maamulka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayuu soo noqday sanadii 2014 ilaa 2015 xogayaha xisbiga UPD 2011 ilaa 2017 ayuu soo noqday sidoo kale waa mid kamid ah aasaasiyaasha jaamacadda magaalada Kismaayo waxa uu ka soo qabtay dhowr xil sida gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda sidoo kale waxa uu soo noqday barasar oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho xogayaha guud ee dalada waxbarashada FBANIS ayuuna sidoo kale soo noqday sanadkii 2003 ilaa 2004 si kastaba mas'uulkan cusub ee loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa durbaba magacaabistiisa kadib soo taraya dhambaalada kala duwan ay dirayaan dadyow kala duwan oo ku kala nool gudaha dalka iyo daafaha caalamka sidoo kale dadka hambaliyada diraya waxaa kamid ah dawladaha qaar ee caalamka xubnaha mas'uuliyiinta Soomaalida ayaa ugu horeeyeen dadkii kala duwanaa ay hambaliyay ra'iisul wasaaraha cusub oo uu xushay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa kamid ah dadka hambaliyada diray ra'iisul wasaaraha xilka banayn doona Maxamed Xuseen Rooble madaxda dowlad goboleedyada sida Jubbaland Puntland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabelle xubnaha kale ee hambaliyada diray waxaa kamid ah madaxweynihii hore ee xilka baneeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warkooban oo bagiisa gaarka ah Facebook uu ku soo qoray ayuu ku yiri waxaan hambalyo u dirayaa mudane Xamse Cabdi Barre oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya
waxaan ra-iisul wasaaraha magacaaban u rajeynayaa inuu eebo u fududeeyo gudashada mas-uuliyadda culus ee loo magacaabay aniga oo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ka codsanaya inay codadkooda kalsoonida siiyaan si uu u soo dhiso xukuumad si ambaqaada horumarka dalka ka socda ayuu ku yiri qoraalkii koobnaa ee hambalyada ah uu diray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. howl culus ayaa sugaysa ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay waxaana ugu horeyn laga dhuur sugayaa meel marinta xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo aan la ogeyn goorta rasmiga uu hortagi doono, inkastoo warar hoose oo uu helayo news ay tilmaamayaan in laga yaabo in ra-iisul wasaaraha cusub baarlamaanka la horgeeyo marka ay soo dhamaato munaasabadaha 26 Juun ilaa 1 Julaayo ee maalmo qura ay naga xigto. inkastoo laga yaabo ka hor intaysan fasaxa gelin xildhibaanada golaha shacabka in la horgeeyo baarlamaanka, haddana dadku qaar waxay saadaalinayaan in ra-iisul wasaarahan cusub uu soo xushay madaxweyne Xasan Sheikh uu noqon doono shakhsi ay xilka si toos ah iskula dhameystaan, inkastoo laga yaabo inay imaadaan madmadow isqaqabsi sidii horeba uga dhex dhici jirtay madaxdii hore ee dalka soo maamushay. geesta kalena Fahad Yaasiin waxa uu ka dhawaajiyay kelmad halis amni dhalin karta. hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa marxalado qalafsan wajahday dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. dhowr taliya ayaa hay-adda maamushay intii uu jiray nidaamkii madaxweyne Farmaajo. waa goobta ugu weyn ee lagula dagaalamo kooxda Al-Shabaab marka la eego sida uu ku dhisan yahay nidaamka dowliga ee Soomaaliya. hay-addani waa midda ugu muhiimsan hay-adaha amniga ee waqtigan. isbedelka tirada badan ee madaxda hay-adda u ekeysiinta goob lagu iibiyo siyaasadda madaxda xukunka heesa iyo xog isku wareejin la'aanta madaxda hay-adda soo martay ayaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay waxyaabaha daciifiyey guulaha hay-addan. hal arrin oo muddo aan jirin ayaa se hadda soo korortay. waqtigii hore madaxda hay-adda NISA soo martay ma faahfaahin jirin sirta hay-adda, waxayna dhinac iskaga riixi jireen inay warbaahinta siiyaan xogaha amni oo ay hayaan ama kiiska u baahan inay weli hay-adda sii baarto. hadda Fahad Yaasiin oo dhowr sano soo maamulay hay-adda NISA ayaa warbaahinta ku faafiyey waxyaabo haddii ay jiraan loo baahnaa in ay janaalo kale la marsiiyo, balse wareysiga uu Fahad bixiya dhowaan ayaa khubarada amnigu waxa ay kasoo dhex saareen qodob ay ku tilmaameen mid xambaarsan halis amni. Fahad waxa uu wareysigiisa ku sheegay in looga baahan yahay saraakiisha hay-adda NISA inaysan wax xogaa la wadaagin agaasimaha cusub ee NISA Mahad Maxamed Salaad. wuxuuna sheegay in taliyaha cusub uu ka mid yahay dadkii laga ilaalinayay sirta qaranka. haddii ay saraakiishu qaataan hadalka taliyahaasi hore waxaa ka dhalan karta xasilooni amni iyo inuu dhaawac soo gaaro shaqada hay-adda ayay leeyihiin xeerdheerayaasha amniga. inkastoo aysan u badnayn in saraakiisha haatan ay u dhagtaagi doonaan hadalka taliyo hore shaqada laga eriyay, haddana arrintani waxay u baahan tahay feejignaan weyn. waxaana muhiim ah in hay-adda si dhaba ugu fahamto kala qaybin, ayuu yiri mid ka mid ah saraakiishii hore hay-adda oo aan la hadalnay. wuxuu soo jeediyay sargaalkaasi oo diiday in magaciisa xigano in agaasimaha cusub ee NISA laga rabo inuu khubaro sharci iyo saraakiil waaya araga u saaro inay dhageystaan wareysiga uu bixiyo Fahad Yaasiin kadibna ay soo saaraan wixii ku jira oo noqon kara halis amni, gaf sharci, waxaa lidiga ku ah xeerka hay-adda iyo midka ciidanka ama keeni kara qalalaasa amni, kadibna laga doodo waxa ku habboon in laga yeelo. baaqa agaasimii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahire inaanan lala shaqeyn ama aan xog la siinin agaasimaha cusub ee hay-adda NISA ayaa dad badan oo arrimaha amniga ku takhasuseen waxay ku tilmaameen kelmadii ugu halista badneed ee ku jirta wareysigii dheeraa ee uu bixiyo Fahad. waxaa la aaminsan yahay inuu Mahad Salaad dareensan yahay culeyska kelmadaasi, waxayna kaloo keeni kartaa ayaa la leeyahay in hay-adda laga saaro dadka lagu arko inay awaamiirtan u hoggaansameen ama laga yaabo inay fikirkaasi dhinacooda ka iibinayaan. waa hagaagi daawadayaal, iminkana waxaanu eegaynaa xoga waxaa laga helayaa ujeedada qarsoon oo ay dowladda Kenya ka lahayd tallaabadii ay qaaday. dowladda dalka Kenya waxa ay maalin ka hor si fudud duulaan ugu qaaday waxa ugu weyn oo ay Soomaalida wada ilaalsato oo ah midnimo, halka uu danjira tarsan uu hantiyay dhibco siyaasadeed oo uu shaqo ahaan u curin waayay intii uu xafiiska joogay Nairobi. waxa ay isku diyaarinaysaa waji cusub oo ay kula dhaqanto Soomaaliya oo hogaamiye cusub dooratay 15kii bishii la soo dhaafay ee May. waxay ka soo gudbeen Kenyaanka 5 sano oo aysan ku raaxaysan
cilaaqaadka diblomaasiga ee Soomaaliya. Madaxweynaha xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay Kenya u ahayd mid ka mid ah dalalkii ugu xag jirsanaa xagga la macaamilka siyaasadda, inkasta oo ay shacabka Soomaalidu ku kala qaybsameen sida uu Farmaajo u fogeeyay Kenya una soo dhaweystay Itoobiya. Haddana markii la arko wax la mid ah dhacdadii maalin ka hor, waxaa bata dadka taageersan inuu Farmaajo ku saxsanaa sida uu la macaamilay Kenya. haddaba maxaa dhacay? Shir sanadeedka diblomaasiyadda shisheeyaha ayuu waxa uu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ugu yeeray safiirada iyo diblomaasiyiinta jooga Kenya. Waa shirkiisii ugu dambeeyay maadaama ay Kenya doorasho galayso horaanta bisha Agoosto ee sanadkan, iyadoo ay tartamayaan madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga. Shirkaasi waxaa soo xaadiray safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Sidoo kalena waxaa isna joogay wakiilka socday xafiiska Somaliland uga furan magaalada Nairobi. Waxaa la sheegay inuu Danjire Tarsan dalbaday in la saaro wakiilka Somaliland iyadoo ay Kenya ilaalinayso midnimada Soomaaliya, laakiin jawaab ku haboon lama siinin diblomaasiyiinta Soomaalida, taasoo keentay inuu Danjire Tarsan iskaga baxo shirka. Kadibna warqad ashtaka oo degdega u qoro dowladda Kenya. Dad badan ayaana bogaadiyay tallaabadaasi. Uhuru waxaa muddooyinkan ku dhex jiray Raila Odinga oo ay wada socdaan siyaasad ahaan. Raila wuxuu ku jiraa siyaasiyiinta Kenyaanka ee aaminsan in Somaliland la aqoonsado. Dowladda Soomaaliya waxay tallaabadaasi ku tilmaamtay kala qaybin iyo ku xadgudub lagu sameeyay jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. Somaliland ayaa iyaduna si kulul uga jawaabtay in Danjire Tarsan uu dartooda uga baxay shirkii kala warqaadashada madaxweynaha Kenya iyo diblomaasiyiinta. Wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland waxay arrintaasi ku tilmaamtay mid muujinaysa waxa ay ugu yeereen naceeb iyo cadow soo jireena oo ay dowladda federaalka Soomaaliya u qabto Somaliland. Dowladda Kenya oo iyaduna dhankeeda ka jawaabtay dhacdadaasi waxa ay sheegtay inay ka shaleynayso sidii ay wax u dhaceen iyo nooca falcelin ee ka timid Soomaaliya, waxayna fariinta Kenya u muuqatay mid cudurdaara. Laakiin marka lagu eego indhaha diblomaasiyadeed waxaa ku soo baxaya fasiraad kale. Maxaa lagu qeexi karaa ujeedada dowladda Kenya ee dhacdadaasi? Diblomaasiyiintu waxay aaminsan yihiin in Kenya aysan ilduuf u sameynin arrintaasi, balse ay ku xoojinayso loolankeeda cusub ee Soomaaliya. Nairobi waxay durbaba walaac ku abuurtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dhowaan waxaa bilowday wadahadalo la rabay in lagu fasaxo jaadka ka soo degaya Kenya ee suuqiisa ugu weyn uu yahay Soomaaliya iyo hagaajinta cilaaqaadka labada dal oo xumaa muddooyinkii la soo dhaafay. Maadaama laga wada hadlayo dano iyo wax kala bedelasho, Muqdisho waxyaabaha la hordhigi karo waxaa ka mid ah waxa ay ku bedelanayso inay Kenya wiiqdo cilaaqaadka Somaliland, waana xujo jirta. Dadka Soomaalida isha ku haya wadahadalka labada wadan waxa ay badi sugayaan fursada dhanka socdaalka in la dhaafsado fasaxida jaadka, laakiin Nairobi oo aan jecleen inay dhankaasi wax ku bedeshato ayaa diblomaasiyiintu qabaan in ay meel kale oo muhiim ah farta ugu fiiqday Soomaaliya. Imtixaanada horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka mid ah sida uu la macaamilo dowladaha Kenya iyo Itoobiya. guud ahaan daawadayaal wanaagta warki oo aad kala socoteen channelka Hubaal News. Fadlan daawada hadda nagu cusubtaan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada hela wararka aanu ku baahino channelkan. aragtidiina halkaas noogu reebo muuqaalkana si share gareeya, laagtiinana waa inoo muhiim. waana ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka warka channelka Hubaal News.